السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبada qiimaha badan ee ku xiran janaalkan soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub haddaba saaxiibayaal waxaan kala gelinayaa in aan la soo dahnay taxanahan mashquul jira awgiis marka aan guda galo bal xalqada falaqaynteeda waa xalqada 26aad ee taxanaha dhaawaca qalbiga fadlan muuqaalka like saar haddaba xalqadu waxay ka bilaabanaysaa halkii ay nagaga dhamaatay xalqadii kale ee 25aad kadib arooska Fariid iyo dabcan Aisha markii uu soo galay ninka lagu magacaabo Cadnaan uu dhacay waxa ku soo ordi doona Fariid iyo Aisha Fariid iyo Aisha markuu soo ordaan kabacdi way kicinayaan haddaba ninkan lagu magacaabo Mirza tan wada ognahay waa dhakhtar asaga iyo caafimaadkiisa eeg doona kabacdina waxa uu baari doona daawadiisa in ay ku jirto jeebkiisa maadaama uu badan ninkan xanuunkiisa uu yahay naqas sidaas daraadeeda waxa uu baarayaa daawadiisa ugu dambeyntii daawada waa uu helayaa Cadnaanna waxa uu dhahayaa aniga waan caafimaad qabaa wiilkiisa Fariid ayaa ku dhahaya aabahan ku qaadan dhakhtarka laakiin Cadnaan arrinkaasi waa uu diidi doonaa in dhakhtar loo qaado nasiib wanaag Fariid ayaa soo raaci doona waxaan iman doonaan guri ay iman doonaan ha imaadaan ma xume markay imaadaan ilaa hadda waxaa la barayaa in dhakhtarka aadan laakiin ninkan lagu magacaabo Cadnaan arrinkaasi uu ka dhagaadeegaya oo dhakhtar ma uusan tagin dhanka kale ninkii Yamaan lagu magacaabayay Hande waa uu soo kaxaystay waxaana la socotaa islaantii kale ee lagu magacaabayay Zumrud waxaan imanayaan gurigooda kadib markii la keenay Cadnaan guriga ay Fariid iyo Aisha keenan Cadnaan waa iska joogaa waxaadna moodaa Fariid markaan aabihiisa in uusan wax codad u qabin taawad ognahay xalqadii u dambeysay aabihiisa markii uu ka codsaday in uu aado arooskiisa ama in uu gabadha markii la dalbanayo uu raaco Fariid arrinkaasi waa uu ka diiday haddaba waxa soo wici doonta Azaade ayaa Fariid soo wici doonta waxayna ka wareysanaysaa dabcan xaalkiisa markaas ka bacdi waxay ku dhahaysaa iska daa hadii uu rabo ha tage laakiin Fariid wuxuu dhahay hooyo midaasi ma awoodi aabahaygana meel banaana ogama tagayi saasi oo ogow haddaba wixii intaa ka dambeeyay waxaana la tusayaa sidoo kale ninka lagu magacaabay Mirza haddii aan soo koobno maadaama waqtigu ugu yar yahay labadaani muran ayaa dhexmari doona laakiin Fariid ma uusan markaani la dagaalin ninkan Mirza lagu magacaabana sheeko kale ayuu u galayaa wuxuuna oga sheekeynayaa aaba la'aantiisa sidoo kale waxaanu u sheegay inuu xerada agoonta ku soo karay ayuu u sheegayaa Mirza ayaa saa dhahaya haddaba dhanka kale waxaan tusayaa odaygii Cadnaan ahaa waa uu baxayaa markuu baxa ka bacdi waxaa la hadli doona wiilkiisa Fariid waxa uu ku dhahayaa aaba halkee tagtay laakiin Cadnaan waxa uu sheegayaa xilligaasi inuu caafimaad qabo wax dhibaato ah aysan haynin saa darteedna wax dhib yar u baxay Fariidna arrinkaa ka xumaanaya markaas ka bacdi Fariid waxaa la soo hadli doonaa walaalkiisa Sinaan waxa uu sheegi doonaa in aabihiisa uu baxay Sinaan wuxuu dhahayaa sidoo ku tay karaa ama iska daa ayuu ugu dambeyntii dhahayaa laakiin Fariid wuxuu dhahayaa seen ku daaya kaliya waxa uu sheegay inuu caafimaad qabo adi calaa kulli xaal hadalkoodu intaasi ayuu ka ekaa Azaade ayaa wareysanaysa wiilkeeda Sinaan marka uu koolka dhameysto waxay ka wareysanaysaa aabihiisa arrinkiisa aabihii arrinkiisa dhanka kale ninkii Cadnaan haasu u socday waxa uu ballansanayaa ninkii Yamaan lagu magacaabayay Yamaan ugu horeyntii hadalku waxa uu la soo boodaya oo ku oranayaa maad khasaartay maalkaagii sidoo kale ninkan Cadnaan lagu magacaabo wuxuu dhahayaa sharaf laawo xun ayaa tahay sidaan runtii kuma maleynaynin adiga Handeena meel qaldan ayaa u socota haddaba ugu dambeyntii ninkan Cadnaan lagu magacaabo waxa uu Yamaan u sheegi doonaa in ama uu ku dhahayaa Britol waxaan kulmin doonaa dhammaan reerka waxaan u sheegi doontaa in aad adiga wiilkayga tahay sidoo kale waxa aad damacsan tahay waan sheegi doonaa in aad damacsan tahay gurigaas in aad damacsan tahay maalkooda sidoo kale in aad dhilfadii tii maxay shaqaaleeda adii ku shaqayn jirtay wax walbana aad u sameeynaysaa aniga dartay haddaba Yamaan waa u hanjabayaa waxa ku dhahayaa wax walba magacayga ayaan ku qorayo dhahayaa sidoo kale waa aflagaada qaarna afka ka sheegay ma doonayay macnaha waa wax iska mana waqtiga kaliya naga dhacaya laakiin ninkan Cadnaan lagu magacaabo waxa uu isku dayayaa Yamaan in uu gacan qaado Yamaan gacanta ayuu iska qabanayaa markuu iska qabtay ka bacdi ninkan lagu magacaabo Cadnaan asaga u hanjabayay Yamaan ayuu ka tagi doonaa dhanka kale qoftii Hande ahayd ayaana la tusayaa Hande ma xume waxay iman doontaa guriga aabaheed haddaba guriga aabaheed marka u timaado waxay arkaysaa naagtaasna waxaan filayaa ninkan lagu magacaabo Xuseen ay la baashaalaysay laakiin Hande isla markiiba aabaheed waxay weydiinaysaa aabo maxaa samaynaysaa sidoo kale xaaladaada bal iga waran haddaba waxa uu dhahayaa ninkan lagu magacaabo Xuseen qofka xuriyada la runtii macnaha xabsigu ma siinayo in uu ku sii jiro Hande way ogtahay in uu Yamaan ka soo saaray xabsiga laakiin odaygan xuriyad laga siiyay ugu dambeyntii qoftan waxay u sheegaysaa ama ay ku dhahaysaa aaba bishaaraysa ay dhahaysaa awoo ayaa noqonaysaa odayga intuu xanaaqasu gacanta u haayo ayaa waxa uu dibadda u soo bixin doonaa marka uu soo bixiyo kabad xidhaysa ma anigoo Hande iyo wiilka calooshada ku jira ee gurigaaga naga soo
bixisay wuxuu dhahayaa isagoo Xuseenana haa waan kaa soo buriyey iga tag ayuu dhahayaa ma doonayo hadaladoodii malayacni inaan sii sheego micnaha inta ugu muhiimsan ayaan kasoo qaadanaya fadlan daawade muuqaalka like noo saar haddaba haddii aan kasoo gubno dhan kale waxaan tusayaa Fariid iyo Cayshe hadda way isguursadeen way baashaalsan yihiin sidoo kale waxa ay degeen guri cusub ayay degan yihiin ama waa gurigii hadda ka hor Fariid uu lahaa oo mar walba iman jiray haddaba dhanka kale oo isla aroortiiba waxaa iman doona odayga Cadnaan ahaa markuu imaado ka bacdi gabadhan lagu magacaabo Cayshe ayuu u keeni doonaa hadiyad qurux badan ayuu u keeni doonaa oo wiilkiisa Fariidna uu imaaday hadda way soo toostay qoftii lagu magacaabayay dabcan Cayshe waxaana Fariid ayaa u imanaya asagoo kule subax wanaagsan ugu dambeyntii labadooda si wada jir ah ayay u quraacan doonaan oo meeshaasi ayay runtii subax qurxoon uga dhalatay dhanka kale ninkii lagu magacaabayay Cadnaan waxa uu imanayso qoftii Handee ahayd Handeena arrinka Yamaan ay kala hadlaysaa sidoo kale waa ay u hanjabaysaa oo kaliya haddaba qoftii Batuul ahayd waxay go'aansatay hadda in ay ka tagto Yamaan maadaama Yamaan iyo Handee ay isguursan rabaan hadda Batuul waxay ka tag rabtaa Yamaan meeshana waa iskaga tag doontaa sidaas darteed waxa iman doonto qoftii Handee ahayd hadalla xun ayay dhahaysaa ayadoo leh aniga Yamaan micnahayga wiilkayga aabihii ma doono inaan meeshan sii joogno waan ka tagaynaa markaas ka bacdi Yamaan Handee soo bixi ku dhahay maxaa kaa qaldan Batuul maad ku xumaynaysaa waxyaalo saasa ayuu ku odhanayaa haddaba dhanka kale odaygii lagu magacaabay Cadnaan dhammaan reerka ayuu isugu yeedhayaa si uu ugu sheego warbixin muhiim ah laakiin warbixintaasi oo socota waxaa karahsanaya ninkan lagu magacaabo Sinaan dhowr jeer mobile ayaa usoo dhacaya haddaba Fariid ayaa dhahaya Sinaan naga daa aabbaha noo sharaxa hamigiisa aabbo maxaad rabtaa inaad noo sheegtid waxa aad rabtid noo sharax haddaba Sinaan mobilka markii la soo waco uu daminayaa markaas ka bacdi Fariin ayaa gaaraysa waxa la dhahayaa waa arrin muhiim dhaafay shirkadda ay wax ka dhacay naga qabo markaas ka bacdi Sinaan waxa loo sheegay in ay wax walba waayeen sidoo kale lacagtooda xitaa ay waayeen oo wax walba magacooda laga wareejiyay markaas ka bacdi odaygan lagu magacaabo Cadnaan isagoo reerku arkeen ayuu bixi doonaa arrinkaasna Azaade iyo Fariid baa la yaabi doonaan Fariid ugu dambeyntii waxa uu go'aansanayaa aabihiisa in uu ka daba tago dhanka kale waxaan tusiyaa odayga Cadnaan ahaa oo wacaya ninkii Yamaan ahaa Yamaan laakiinse kama qabanayo oo Yamaan ayuu ku celin dhowr jeer ugu dambeyntii qoftan Azaade lagu magacaabay ayaa soo daba soconaysa waxa aga ka bacdi gaadhiga markay u soo dhawaato gaadhiga isku soo tagi doonaa halkaas labadooda muran ayaa dhex mari doonta sidoo kale waxay ku dhahaysaa ma waxaad socotaa wiilkaaga Yamaan sidoo kale ma waxaad rabtaa wax walba in wiilkaaga Yamaan ku qortid markaas ka bacdi wuxuu dhahayaa ileen adigna waad ogeed soo ma aha haddaba asagoo kule fadlan isaamax wax walba aniga xalinaya qalad weynna ayaana galay ee isaamax oo kaliya ugu dambeyntii wuxuu dhahayaa waa ballan aan kaa qaaday arrinkan aniga xalin doona odaygan lagu magacaabay Cadnaan gaadhigiisa ayuu sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo gali doonaa oo saas ayuu kusoo go'aansan doonaa inuu gaadhigiisa kusoo galo dhanka kale Fariid iyo walaalkiis waxay imanayaan shirkadda markay imaadaan ka bacdi waxay ku mashquulsan arrinkaasi Fariid oo shirkadda ku mashquulsan markan soo xalan tusaya qofta Azaade ahayd ooyisa laakiin waxaan filayaa in la ooyisa kadib odaygii markuu ku dhahay naga mari isla markiiba si loo filaan waxaan loo tusaya odayga Cadnaan ahaa oo shil galay oo madaxiisa runtii dhaawac soo gaadhay steerinkana madaxiisa dul dhigay oo sidoo kale aad moodido qof dhintay Cadnaan runtii waa u dhintay laakiin qof qama Handi ayaa u iman doona ama qof gacmo qaba ayaa u iman doona markuu yimaado ka bacdi qofkaas indhaha ayuu u daboolaya laakiin runtii qof aliyo qof yama sheegi kari dhanka kale qofka Cayshe ahayd odayga siliska u keenaya ka soo dhici doona sheeka hindi miyaa marka mise film hindi waaye film hindi ayaan arki jiray qof markuu dhinto qofkii dhintay wax uu ku siiyay inuu ka dhacayo marka haddii aan soo laaban dhanka kale hadda waxa isla jooga Fariid Azaade iyo Sinaan waxna joogaan shirkadda si loo filan waxa loo soo wici doonaa ninka lagu magacaabo Fariid marka la soo waco waxa loo sheegi doonaa aabihiisa in uu galay shil gaari Fariid asagoo oo naxsan ayaa waxa la weydiin doonaa waxa aabihiisa ku dhacay oo waxa aa weydiin doonaa Azaade iyo dabcan wiilkan kale ee lagu magacaabo Sinaan ayaa ka wareysan doona waxa ku dhacay aabihiisa haddaba Fariid waxa uu dhahayaa aabaheena micnaha waxa uu galay shil gaari markaas ka bacdi dhammaantooda waa ay naxayaan oo waxay ka naxayaan arrinkaas uu sheegay sidoo kale qoftii Cayshe ahayd ayadana waa loo sheegay inuu shil gaari helay isla markiiba waxa iman doona ninkii Fariid lagu magacaabay meeshuu shilka ku dhacay waxaana ku dul ooyayaa aabihiisa ku dul ooyay ma xume wuxuu ogaanayaa aabihiisa inuu dhintay isagoo ooyo la hadda aabahayga ma uu iga tagay ayana la tusay oo baroranaya laakiin ninkii Sinaan ahaa iyo Azaade kor ayay ka fiirinayaan uma aysan soo dhawaanin waxaad moodaa Azaade in ay arrinkan ka dambeysay laakiin bal sheekadu way noo dambaysaa iyo faaladu qaybta dambe markaas ka bacdi qoftii Cayshe ayaa u iman doonta ninkan kale ee lagu magacaabo Fariid sidoo kale waxa iman doona ninkii Yamaan ahaa ayaa iman doona
oo runtii arrinkaasi la moodo mid ka naxsan ama mid runtii arrinkaasi ka walwalsan waxa ku dhacay Cadnaan Sanjaagsade. Haddaba Yamaan hadda waxa uu guursaday qoftan lagu magacaabo Hande, laakiin arooskoodana lama tusin. Waa sida kaliya xalqadda aan ku arkaynay iyo hadal haynta. Dhanka kale isbitaalka ayaana la tusay iyagoo jooga, qof walbana waa u tacsiyadeynayaa, oo qof walbaba waxa u tacsiyadeynayaa Fariid iyo Yamaan, iyo sidoo kale waxaan ka wadaa Fariid iyo Sinaan ayaa la tacsiyanaya, sidoo kale Yamaan ayaa imanaya oo waxa uga tacsiyadeynayaa geerida ku timaaday Fariid aabihiisa. Wixii inta ka dambeeyay booliska mid ka mid ah ayaa u sheegay markii ugu dambeysay in uu ku hadlayay Cadnaan Sanjaagsade, ama uu la hadlayo qofkii ugu dambeeyay uu la hadlayay uu ahaa Yamaan in uu ahaa. Ilaa iyo hadda Fariid ma ogaanin Yamaan in uu yahay walaalkiisa, ma uusan ogaanin oo wax wara kama ogo. Dhanka kale waxaan tusayaa qoftii Zumru helay albaabka lagu soo garaacay, waxay dhahaysaa yaaga garaacaya. Albaabka markaa u furto waxaa arkaysaa ninka Xuseen haa, waxay damcaysaa in ay albaabka ku celiso, waxay dhahaysaa maxaa halkan ku keenay. Isaguna wuxuu dhahayaa adiga waxaad tahay xaaskaygii, maxaa ku keenay ma af Soomaaliya, micnaha maxaa ku keenay ma hadalba. Wixii intaa ka dambeeyay waxa uu dhahayaa Cadnaan ayaa dhintay, albaabka iga fur. Zumruudna isla markii albaabka ka farxaysa waxay dhahaysaa war baad haysaa balkaale, micnaha la ku yar dadara ila fahmaa. Waxay dhahaysaa micnaha hore gudaha soo dhaaf, isagana wuxuu dhahayaa albaabka xidh bal. Markaas ka bacdi waxay dhahaysaa soo ku dhintay. Asaguna wuxuu dhahayaa waxaa la sheegay in uu ku dhintay shil gaadhi, laakiin arrinkaasi uma maleynayo sababtoo ah qof shil gaadhi ku dhintay uma eko, waa qof si kadis ah loo jiirsiiyey. Sida warbixintu sheegaysa ayuu dhahayaa, ama sida nolosha booliska sheegayaan, gaadhiga isaga ayaa meel bannaana ka dhacay. Laakiin waad ogtahay sidoo kale ayuu dhahayaa Yamaan inuu yahay wiilka Cadnaan soo ma aha. Iyaduna waxay dhahaysaa ha, iyadu way yaabaysaa, micnaha markii koobaad ay maqashay arrinkaani ayaan filayaa. Kulley ani xalqadda mar hore ayaan daawaday, aad uma xasuustay, kaliya waxaa inay yaabanayd oo markaas ka bacdi isla markiiba inta gabadheeda la hadasho ay ku tiraahdo gabadheedii waxaa dhintay. Horta waxaa la tusayaa qofta haddii uu telefishinka daawanaysa iyadoo ka maqlaysa Cadnaan, markaas ka bacdi warbixinta isla markiiba isku duminaysaa. Hooyadeeda ayaa soo wacaysa, waxay ku dhahaysaa gabadheedii waxaa dhintay ninkii Cadnaan ahaa. Iyaduna waxay dhahaysaa hooyo waan ku tacsiyadeynayaa, sida iyadoo uu ka dhintayba qof muhiim ah. Markaas ka bacdi waxay dhahaysaa Hande hooyo bal ka waran, aniga ayaa dilay ninka lagu magacaabo Cadnaan. Arrinkaasi ayaa runtii la yaabay, laakiin la soco muuqaalada xiga aan ku falaqeynayno dhaawacii qalbiga. Haddaba markaas ka bacdi way naxaysaa iyadoo gabadhii Hande maxaad samaysay ayaa isla markiiba koolka qoftan kale ay ku tarisaa. Hadda Fariid iyo Sinaanba waxay dul joogaan meydka Cadnaan si ay u maydhaan, ayay dul joogaan. Sidoo kale ninkii Yamaan ahaa ayaa u iman doona oo meesha iman doona. Haddaba qoftii Azaade ahayd runtii ayadu xilligan way murugsaysan tahay, wax alli waxay samaysanaa ma garanayso. Dhammaan reerka waa loo tacsiyaday, meydkan waxaa loo soo qaaday in lagu tukado lana aaso. Ugu dambeyntii meydka waa la aasi doonaa, waxaana la keeni doonaa qabriga. Kadib marka quraanka lagu akhriyo meydkana lagu tukado, janaazadana la dhameeyo, waxaa dhacda in meydka la aaso, markaas ka bacdina sabir iyo iimaan lagu dhaho. Qoftii Batuul ahayd waxay habsiinaysaa ninkeedii hore ee Yamaan, ayadoo runtii aad u murugaysan wixii ku dhacay. Haddaba xaafadda ayaa xitaa geeri lagu dhigi doonaa, oo dhammaan ninkii Cadnaan Sanjaagsade ahaa ayaa la xusayaa. Waxaana loo dhigayaa ducooyin badan oo Cadnaan Sanjaagsade hadda sidaas ayuu ku dhintay, daawada ee la soco. Haddaba kadib marka ay dhammaato ninka Cadnaan geeridiisu, guriga reer Sanjaagsade waxaa iman doona ninka lagu magacaabo Yamaan. Yamaan marka uu damco in uu sii baxo ama in uu iska tago, waxaa dhacda ninkan Fariid lagu magacaabo inuu istaajiyo oo ku dhaho markii u dambeysay aabahayga adiga ayuu kula hadlayay, maxaad ka hadlayseen? Yamaan waxa uu dhahayaa waxaan ka hadlaynay arrimo khaasa. Fariid asagoo xanaaqsan ayuu dhahayaa war arrimo khaasi waxaas waa maxay? Hadda aabahayga waa uu dhintay, maxaad ka sheekeynaysaa? Labadaba halkaasi waxaa ku dhex mari doona muran runtii aad u daran ayaa ku dhex mari doona, halka marka u dambeysa xitaa labadooda uu isdagaalaan, xoog isma dagaalaan, micnaha ninkan lagu magacaabo Yamaan ayaa dhahaya Fariid ma doonaya inaan buuq furo, hadda waan kaas tegayaa, mana doonaya inaan xanuunadaas sii kakiciyo, waan kaas tegayaa, fadlan iga aamus ayuu dhahayaa. Waxaana kala celin doona qofta Batuul ahayd iyo gabadha Cayshe ahayd ayaana kala celinaya. Sidoo kale asxaabta waxaan kala gelinaya degdeg lagu diray xalqadan. Haddaba haddii u nimaano xalqada inta ugu xiisaha badan oo gabagabada xalqada, sidoo kale xalqadii intuu dambeysay qoftii waxaana la tusayaa lagu magacaabayay Hande oo soo xiratay dhar casaan ah. Markaas ka bacdi waxay iman doontaa qasriga reer Sanjaagsade. Waxay dhahaysaa yaa jooga gurigan, maxaa subaxdan la tiiftiin? Waxaa imaaday gabadhii guriga iska lahayd, fadlan soo kaca, aytaan kisbaan ii keena qaxwo ayay dhahaysaa.
ayadoo runtii dalladeeda wadata ayaa saa dhahaysaa. Markaas ka bacdi guriga ay soo galaysaa Farida ayaa ku dhahaya handee khayr sheeg maxaa jira oo subaxdan la timaaday maxaase halkan ka qabanaysaa. Markaas ka bacdi waxay dhahaysaa hooyo Azaade xaaladaada balka waran ma caafimaad qabtaa. Azaade waxay dhahaysaa halkan maxaad ka qabanaysaa handee warkaaga caddee. Markaas ka bacdi waxay dhahaysaa waxaan u imaaday in aan warbixin khatara idin sheego ayay dhahaysaa qoftan lagu magacaabo handee. Laakiin Sinaan ayaa runtii arrinkaasi la yaabaya. Markaas ka bacdi waxay dhahaysaa ugu horreyntii bal arrinka koowaad ama bishaarada koowaad inii sheego aniga ninka lagu magacaabo Yamaan ama jacaylkayga Yamaan ayay dhahaysaa waan isguursanay tan koobaad. Tan labaad waa arrin muhiim ah. Markaas ka bacdi ninkii Yamaan ayaa isla markiiba soo booday iyadoon waxba odhanin wuxuu dhahayaa aniga xaaskayga waan isguursanay waxaana imaanay gurigeena. Wixii intaa ka dambeeyay Yamaan waxa uu dhahayaa waxaa isguursaday ninka lagu magacaabo Yamaan Sanjak Saade iyo Handee ayaa isguursaday ayuu dhahayaa. Markaas ka bacdi ninkan lagu magacaabo Sinaan ayaa dhahaya waree maxaa ku hadlaysaa doqon xunka ah maxayse tahay labadan maxaase rabtaa. Yamaan waxa uu dhahayaa waxaan rabaa in aan idiskiin baro magacaygu waa Yamaan Sanjak Saade. Cadnaan Sanjak Saade waxa uu ahaa aabbahayga sidoo kale waxaan nahay walaalo dhanka aabbaha ah ayaan nahay ayuu dhahayaa. Farida dhahaysa labalabada nagada warkaaga caddee. Wuxuu dhahayaa Cadnaan aniga aabbahayga ayuu ahaa waxaanay dhashay xaaskiisa wuxuu dhahayaa waxaanay weli sharci daraa ku dhashay Faraaya ayaana i dhashay ayuu dhahayaa. Haddaba arrinkaasi ayaa runtii la yaab ku noqon doona dhammaan reer Sanjak Saade. Waxa uuna dhahayaa labadeenaba waxaa nagu jira hal dhiig. Markaas ka bacdi waxa uu dhahayaa sidoo kale qasrigan aniga ayaa iskale sidoo kale qoftan deedii dhahaysa wixii hadda ka dambeeya gurigan waxaa iskale annaga. Cadnaan Sanjak Saade inta uusan dhiman ka hor wiilkiisa Yamaan ayuu micnaha ku wareejiyay wax walba. Warqadda ay soo saaraysaa warqadda Zaade ka qaanaysa warqaddii caddaynaysay in guriga ay iyagu leeyihiin. Sidoo kale ninkii Yamaan gees ay u dhaqaaqi doonaa. Waxa uuna dhahayaa Yamaan inta uu gees u dhaqaaqa asagoo labada gacmood fidinaya micnaha walaalkiina miyaydan habsiinayn. Xalqaduna halkaasi ay ku dhamaanaysaa intii Handee soo garab istaagto xalqadu halkaasi ku dhamaanaysaa. Kolley baryahan mashquul ayaan ahay YouTube dhanna waan ka maqnaa sidoo kale maba ogi in goosgoos uu soo baxaya in kale. Bal goosgooska xalqada 27 iyo macluumaadada ayaan ka war doonaya. Ee la soo muuqaalada xiga anigoo saaxiibkeena Khalid oo mar walba idin garab taagan waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.